السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي أبون داوضي الميلا جوجتان بقصة دوادا وروحي أنو عالم كان ذي كايني oo subaxan saaka aynu ku eegi doono bal wararkii caalamka ka dhacay qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah malaayiin qof oo ka qayb galay aaska hogaamiyihii hore Iran Hamas oo dib habeyn ku sameynaysa maamulka marinka Gaza iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo digniin cusub u diray Iran iyadoo wada hadalladu ay hakad ku jiraan qodobadaas iyo qaar kale ayaad ku dhageysan doontaan ee soo dhawaada iyagii oo fisan aynu ku bilownay munaasabada lagu sugootinayo meydka hogaamiyihii hore ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta gashay marxalad cusub ee kadib markii meydka laga soo qaaday caasimadda dalka Iran ee Tehran loona qaaday magaalada ay shiicadu ka barakaysato ee Qom kumanaan qof ayaa safaf dhaadheer u galay wadooyinka magaalada Qom si ay uga qayb galaan salaada jinaasada iyo munaasabada sagootinta halka ciidamada ammaankuna ay si weyn u adkeeyeen amniga goobaha ay ka socoto munaasabadu mas'uuliyiinta Iran ayaa sheegay in Qom ay tahay saldhigga ugu muhiimsan ee diinta shiicada sida daraadeedna meydka hogaamiyahan waxa halkaasi loogu qaaday si culimada iyo shacabkuba ay uga wada qayb galaan munaasabada aaska inta kadib waxa uu qorshu yahay in meydka loo sii qaado magaalooyinka Najaf iyo sidoo kale Karbala ee wadanka Iraq ka hor inta si rasmi ah loogu aasin magaalada Nashaad oo uu ku yaalo xaramka Imam Reza munaasabadan ayaa indhaha caalamka soo jiidatay iyadoo falanqeeyaashu ay sheegeen inay saameyn ku yeelan karto siyaasadda gudaha Iran iyo xaaladaha amniga ee bariga dhexe xilli ay wajahayaan marxalado siyaasadeed oo xasaasiya dhanka kalena xiisada gobolka bariga dhexe ayaa weli taagan waxaana indhaha caalamku ay si dhow ugu jeedaan tallaabooyinka xiga ee dowladda Iran iyo xiriirka ay la leedahay Mareykanka iyo Israel falanqeeyaal badan ayaa rumaysan in munaasabadahan ay noqon karaan bilowga marxalad siyaasadeed oo cusub maadaama hoggaanka cusub uu wajahayo caqabado waaweyn oo dhinaca amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda gobolka dhanka kalena ururka Hamas ayaa ku dhawaaqay inuu kala diray maamulkii rayidka ahaa ee marinka Gaza iyagoo sheegay in la sameyn doono maamul cusub oo ay hogaaminayaan guddi farsamo go'aankan ayaa imanaya xilli ay socdaan dadaalo caalami ah oo lagu doonayo in lagu xoojiyo xabad joojinta iyo in dib loo bilaabo adeegyada muhiimka ah ee shacabka reer Gaza mas'uuliyiinta Israel ayaa dhankooda sheegay in aanay tallaabadan wax weyn ka bedeli doonin xaaladda dhabta ah ee ka jirta Gaza halka dhinacyada dhexdhexaadintuna ay ku baaqeen in la sii ambaqaado wada hadallada hay'adaha gargaarka ayaa weli ka digaya xaaladda bini'aadanimo ee Gaza iyagoo sheegay in malaayiin qof ay u baahan yihiin cunto biyo daawo iyo hoy indhaha caalamka ayaa hadda ku jeeda in tallaabadan ay horseedi doonto maamul rayid ah oo xasiloon iyo in kale madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu heshiis la gaaro Iran balse haddii wada hadalladu guuldarraystaan ay qaadi doonaan tallaabo adag Mr. Trump ayaa sheegay in tallaabadan dhinaca ay haystaan laba wado oo kaliya waa in heshiis la gaadho buu yiri ama in xaaladdu ay u gudubto waji kale oo adag hadalkan madaxweynaha Mareykanka ka soo yeedhay ayaa ku soo beegmaya xilli wada hadalladii u dhaxeeyay Washington iyo Tehran ay hakad ku jiraan sababo la xiriira munaasabada aaska hogaamiyihii hore ee wadanka Iran dalal badan oo caalamka ayaa ku baaqay in la dejiyo xiisadda isla markaana dib loogu laabto miiska wada hadallada si looga fogaado dagaal cusub oo gobolka ka qarxa khubarada arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay noqon doonto kuwa ugu muhiimsan mustaqbalka xiriirka Mareykanka iyo Iran